Waxaa waayadan dambeba la dareemay oo soo korortay in dunida si weyn loo kala gadanayo caleemaha laba geed oo si weyn uga baxa dhulka Soomaalidu ay degto. Arrinkan ayaa soo shaabaxday kadib markii la sheegay in dhakhaatiirta China ay si weyn u isticmaaleen caleenta geedaha dabiiciga si ay ula tacaalaan fayraska taashka xiran ee coronavirus oo inta badan sababa caabuqa laamaha hawada sifeeya ee sanbabka ee dadka bini'aadanka. Arrinkan oo sababta marka dambe inuu qofku galo xaaladda inuu neefsashada gabo. Labadan geed oo hadda si weyn caleemahooda loo kala gadanayo ayaa ah geedaha Soomaalidu ay u taqaano miraan mira hindiga iyo caleenta baxarasaafka. Haddaba su-aasha isweydiinta leh ayaa maxay tahay sirta ku duugan labadan geed oo aysan Soomaalidu ogeyn? Waqtan kuwaad ee caleemaha geedaha miraan mirida iyo baxarasaafka ayaa loo badinayaa inay ku jirto maadada chloroquine-ta oo dabiiciya, waana inta badan geedahan laga shitaa kaneecada markaynu dhulkeena joogno, waxaana caleemahooda marka la kariyo sida shaaha loo karsado ay daawo ka yihiin cudurka kaneecada ama duumada. Tan labaad waxaa caleenta labadan geed daawo ka yihiin cudurrada gala dhuunta iyo sanbabada sida neefqabatinka, asmada, hargabka xumaada iyo of-wareenka oo intaba ay daaweeyaan. Tan saddexaad waxay daaweeyaan caleemaha labadan geed fayrasyada ilmaqabatinka ee weerara hanaanka difaaca jirka iyo sanbabada, waxaana caleemahani kor u qaadaan difaaca jirka aadanaha. Arrinkase xiisaha leh ayaa ah in caleenta baxarasaaftu la dagaalanto bakteeriyada iyo fayrasyada nooc walba ay yihiin, waxayna kor u qaadaa unugyada dhiigga cad ee T4 oo ah unugga dila fayrasyada iyo jeermiska soo weerara jirka bini'aadanka, wuxuuna lafdhabar u yihiin difaaca dabiiciga ee jirka. Waxaa kale ay daaweeyaan caleemahani xumadda iyo qufaca sare oo caanka uu ku yahay fayraska qarnigan ee coronavirus, waxayna sifeeyaan sanbabada jirrada ee caabuqu u galo. Waxaa kaloo Soomaalidu ogeyn in caleenta baxarasaafku daawo ka tahay cudurrada ku dhaca kaadi-mareenka kelyaha, siiba dadka qaadka iyo sigaarka caba oo si weyn dhiigga ay uga sifayso. Dadka samboorka iyo dhanjafka sanka u xiro ayay iyaguna ay daaweysaa marka ay isku bukhuuriyaan ama shaah ahaan ay u karsadaan caleemahan. Waxaana caleenta baxarasaafku daawo ay ka tahay oo kale sonkorta, maadaama ay xajmiga sonkorta dhiigga ka sifayso. Waxaana ugu dambeyn caleenta baxarasaafku daawo ka tahay calool istaagga joogtada, shubanka iyo cudurrada calool ku jirta sida gaasteriga. Waxaana habboon qofku inuu isticmaalo caleentan oo uu karsado amaba markaasi uu isku bukhuuriyo haddii uu dareemo caabuq ama neefta oo qabanaysa. waxaana dadka Soomaalida oo waqtigan adag aan haysan daawo iyo daryeel caafimaad loo baahan yahay inay uga faa'iidaystaan waxtarka baxarasaafka iyo miraan mirida dhulkooda Ilaah ku manaystay. Like oo la wadaaga asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan barnaamijyo cilmiyeysan oo Xawataka TV mar walba soo gudbiso.